Soomaaliya waxaan idin sheegayaa oon idin sheegayaa laydin duleeye horta intiina Soomaalidina waxa weeye aad ba u yartihiin af Soomaaliga waa luuqadiina intiina luuqada Soomaaliga qortan aad ba u yartihiin waxa weeye intiina qurbaha soo gashay horta waad iska lunteen wax allaale wixii la idin sheegay run baa moodaysaan naag xun oo fataalada xal halkaas soo gashay waxa la caayo oo la aflagaadeynayo oo la waxaynayo waa awoowayaashin luuqada aad baratay ama luuqada aad baratay dadka hadaad wax barashada wax loogu fasiraa dadku inta badan af Soomaaliga way ku qoraan wayna ku akhriyaan example hadaad rabto macaawis yani dadkii Soomaaliya waxay qaataan like insert they take the surwaal ama pen waxay qaataan macaawis hadaa maanta English macaawis tiraado ku fasir oo bal haduu wuxuu yahay macaawis English kuma fasiraa English language does not explain macaawis Arabic doesn't explain macaawis let me explain to you people macaawis waa luuqada Javanese-ka ama Indonesian-ka ama Java hadaad maqasheen luuqada waa ku fasiraysaa macaawis waayo dadkooda macaawis bay xirtaan macaawis waxa qaata dadkaas Asiaatiga ayaa qaata oo dhulka especially Malaysia iyo Indonesia iyo dhulka lamida ee Malay ku nool haddaba aan idin warramay Soomaaliya waa la idin gumeystay intiina Soomaali run ahayd anaga nafteeda ahaydna oo dadkaas ahaydna waa la gumeystay dib baa loo soo noqday bariga hore muslimiintu waa isku dhex jirtay Indonesian Soomaalida dhaqanka Indonesian ka heesatay intooda badan macaawis bay xiran jirtay waa la soo kala fireeyay waxaa loo bedelay gabar Carab ama gabar dhaqanka Carab soo barata lagu guurinayaa khamiis baa lagu gelinayaa halkaas waxa laga aqsan ninkii dharka cadda waan fahanaytaa waxaan fahmin naag Soomaaliyeed oo aabaheed caayis beenaan fahmin oo aabaheed ka dhigaysan nin gabar yar kufsaday iyadoo waliba diinta muslimka Prophet Maxamed la dhaho 9 years old gabar uu guursaday la dhahay haddana sharciyan ay ka jirtay haddana waxa keentay inay dadka ay sawirka soo saarto dad waaweyn oo gabdho yar qaba guursanay oo especially nin maxaa yiraahdaa Sudanese oo waji dheer oo kushitig ah hortaas aad bay iga xanaajisay waxa kale aad iga xanaajisay Soomaaliya hadda if you want to explain macaawis oo maxaa dharka cad hadda Soomaali ku higaadiso aad tirada waxa ay dhalan ninkii dharka cad hadda dhado waa 169 halka waxay kaaga cadaanaysaa 69 inuu yahay ninkii dharka cad halkaas laga dhigayo ninkii dharka cad waa dhalaa manaagtii ninkii dharka cad isguursada dhalay halkaas waxa kaaga cadaanaysa Soomaaliya ina 16ka page halka ka imaad waxa kaaga cadaanaysa 215 ay noqonayso hadaa taa ninkii macaawista wata dhalay halka waxa kaaga cad orange iyo black ina noqonayso adiga aqligaaga isticmaal inta dadka caaysid nacalad baa kugu taalo oo nacalad baa idinku taalo fadara xaraan ha nijaas idinka dadka awooge inta sawirkiis u eeg awoogeegi dhalay soo saar meesha waa idin xanaaqa waa iga xanaajiseen horta ayada ay sidaa tahay is explain to you Soomaaliya kulligan gumaysi wala waa ku jirtaan gumaysigana idinka oo dhan baana araba all of you do you go to Indonesia all of you do you go to Malaysia yes marka waxa waay kulligan waxa believe garaysan tihiin waad ogtiin ninka dahabka isku sheegaya wuxuu ku kaleemayaa inuu Sudanese yahay Indonesia 45 milyan ayaa Sudanese ah hay ka waran Sudanese kaleemayaan haddana xagee ka soo wareegeen waxay waa boqortooyada Dar es Salaam waa Brunei walaalaha meel buu joogaan Mareykanka meel buu baxaan dadkaasna dad kasta way leeyihiin sabaana oo ku hoos gabadaan dad walba way leeyihiin balaayo alla idinku Soomaaliya waa idin nacay afkiina dheer waxa idin sheegaa idinku oo meel idinka soo gala garanaynin ayaad haddana dadka aflagaadeysaan afkaaga dheer oo dhilanimada aad wato qof baa waxa ka warhaysaa oh her father married a Bruneiese woman his father married a Bruneiese woman his father married a royal Bruneiese his father married a Indonesian his father married it doesn't matter what does it matter who are you first adiga is aqoonine adiga ayaan is aqoonine marka lagaala hoos baxay dadkaaga ama dadkaaga dad aqoon u leedahay ina u fasirto tiraado qofkan saas ma qofkan is a pure black father he has a pure black father who never left Somalia never left Horn Africa
That is your claim. It doesn't matter what clothes that lagu geliyo. It doesn't matter who you are. I am who I am. maanta oo dhan haddii la dhahayo gabadhan waa naag cadaan ah aniga naag cadaan saa kuma noqonayo waa iga dhigi kartaa aabaheed dhar cad haa of course aabaheed markuu gabar carbeed ama gabar yaman guursaday dhar cad waa loo gelinayaa khamiis cad laakiin aabaheed my father nobody put him white clothes on him. He is the man who married the young woman oo yaman ku dhalatay oo baadiye he took her to the forest camels iyo cows inay raacdo nama aha in my grandfather loo qaado oo laga dhigay reer magaal laga dhigay no. My father he already was reer magaal, he already was leave the town and he already live in the forest. He has camels and cows and sheep and forest. Everybody know that. ma ina maanta u fasirto ma beed ugeed reer baadiyo ha markuu naag reer magaal oo yaman ama carabi guursaday ba magaalo la geliyo dhar yaman loo geliyo dhar cad loo adiga waay wax xasaas dhahayso. You are the one who saying that. No one else said that. No one else put my brother white uniform يعني you know خميس or Arab clothes. You are claiming. Yeah. باستر باتا دلاتها خنيسين باتين كلجن وعقال لساني قاعد نعي والله إن أفلقادينا إن حشمينين ويا grandfather كيج يدسنت كيج حشمي ويدن أنا أقول هذا ناكتا أكتر grandfather قاد ناك عمرت يمن أذن كودن باكلامين يمن إن كإماتين إذن كودن باكلامين from Yemen to Horn Africa used to be connected so is a Yemen belong to basically Horn Africa. I'm telling you people you don't know. Look biyaha cadmeed iyo biyaha halkaas ka gala gacanka waa isku bahalka ka gala halkaas same thing so waxaan idin sheegayaa waana barteen waa iska kin celinana ilaahana wuu naga kin celinayaa waa iska kin reebana ina dhisantin you messing with our dissenting you messing with our grandfather's background you trying to manipulate us and say oh that's why they are very gentlemen that's why their values go down because their grandfather put their value down after he married young Arab women. That's not the reason. There is nobody say that. Quran doesn't say that you marry young Arab lady and then you put a white khamis or white jalabib as a man and then your value go down. Anaga waxaad nooga dhadhaadhicinayso hadda you are telling the people it's like that. That's not the reason. The reason is to put your value down is you are telling the story wrong story. You're telling the people something is not there. Is that what fully value waxa Soomaaliya dhulka idin dhigay oo waxa idin sheegaya dhulka idin dhigay idinka ilaah dhulka idin dhigay idinka is dhigay value idinka isku qabtaan ee sida qof kale hoos ugu dhigaysaan oo qof Soomaali oo nationality oo Soomaali kugula dhashay oo dhulka kugula dhashay oo taqaani oo qabiilkiisa hoos ugu dhigaysa ayaa ilaah adigana hoos ku dhigay insha Allah hoos uu idin dhigaya kulligiin ilaahay waxa ka codsanaa kulligiin raaciyad inaan noqotaan slave inaan noqotaan ilaahay rabbiga raxmaanka Itoobiya inay idin qabsato raaciyad ku fiicantihiin qof kale idinka oo kala ayaa dhulka dhigaysaan dhulku ilaahay idin dhigaya insha Allah maxaa kale wax kale ma jirto.